wuxuu sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya uu kala hadlay oo uu yiri Ilhaan dib ugu qaad Soomaaliya oo naga wad arintaasi madaxweynaha Soomaaliya ma kala hadashay baaritaan ma ku sameysay maxaad leedahay aragti ma kula tahay adiga wax baaritaan u baahan inay tahay hadalkaas ma ka aaminaysaa madaxweynaha Mareykanka aragti ahaan maxay kula tahay adiga hadda waxa la aamini kara ma aha nin doqon camal wax uu ku hadlay oo kale way ma aha nin madaxweyne wax uu ku hadlay marka dhulka kama qaadan aniga waayahay marka cabsi ma jirtaa ku gashay markaad dareento ama aad aragto hadallada falcelinta madaxweyne Trump kaaga imaado qof cabsado umaanan dhalan waayahay markaad dareento Soomaaliya sidoo uga hadlayo wadan aan dawlad lahayn wadan burbursan wadan sharci uu ka jirin amaan aan lahayn booliis uu ka jirin maamulkiisa uu shaqeyneen maxaa dareentaa dareen ahaan Soomaaliya in ka soo jeedo intana congresswoman ayaad ka tahay Soomaaliya inay dawlad leedahay qof kasta waa og yahay oo hadda security council-ka ay ka mid tahay oo ay fadhisaa Ilhaan Cumar ayaa marka laga wareystay arintii beenta aheed ee madaxweynaha Donald Trump uu uga been abuuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo waliba Ilhaan oo uu sheegay waxyaabo aan macno ku fadhin oo ahaa in madaxweynaha Soomaaliya uu kala hadlay inuu Ilhaan hore u sii wato balse uu ka diiday mar raba iga joogdiira camal mar uu la hadlay koox asaga la shaqeysto calooshoodu shaqeystayaal oo xafiiska White House-ka ay ku kaftamayeen inkastoo waxa dad warbaahin aan la soo bandhigin warbaahin qaadanaysa is jirin ayaa waxay sheegtay in qofkaani macnaha uu iska yahay macnaha qaabkii uga jawaabtaa fudud ba adigu ma ka rumaysatay tiri waxaas macnaha waxay cadeysay inuu yahay ninkan nin iska been badan oo wuxuu raba iska soo qaato dadka xitaa iska nabto hebelan saas weydii iska dhaa marka taas waxay ku cadeysay in madaxweynaha Soomaaliya uu iska nabtaba oo waxaas nafsi ay ahayd oo wax been abuur ay ahayd waxa kaloo la weydiiyay ka waran marka Donald Trump uu yiraahdo dalkiina dawlad ma laho boolis ma laho ammaan ma wax male ayadana si cajiib oo xirfadaysan uga jawaabto waxay tir dalkeen inay dawlad leeyahay madaxweyne leeyahay dadka dhama og adduunka dhama laga ogaana sax isla markaana waxay sheegtay in ciidamo ma leeyahay militariga Soomaaliya iyo militariga Mareykanka ay wada shaqeeyaan muqaabalaadka Soomaaliya iyo muqaabalaadka Mareykanka ay wada shaqeeyaan iska gaashadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada ee bariga Afrika marka waxa cad in Donald Trump wixii hore aan uga sheegno ahaa in warkaas war beenuska oo madaxweynaha xitaa iska nabsanayay inay haddana Ilhaan ay warkii sidii u sheegtay iyadoo ay dadku qaarna wada sheegayeen oo uu iska ahaba nin iska macduur oo wuxuu sheegay wax kale aan la kala ogeyn waliina waxaad moodaa in dagaalka Ilhaan iyo uu sii socdo Donald Trump inkastoo hadda Donald Trump asagu yahay ninka hadda dhib ku gaaro mar walba macnaha ka qaylinaya gabadhan Ilhaan waxa uu moodaa in iskaga jirta xaalad iska relax ah oo wax cabsi ay iska qabin oo macnaha markuu hal eray soo tuuro markii hal mar ay hadashay Ilhaan basagna uu gariiraba oo meel laga joogo qoon saxaafadan isku wacaayad mudawli inay ku sii kacsantaa xaaladii kuleelka aheed deganaansho la'aanta aheed iyo waliba xaalad